in ka badan 190 wadan ayaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska heshiis ka gaaray isbeddelka cimilada dunida waxayna ku heshiiyeen in hoos loo dhigo qiiqa hawada lagu sii daayo oo saameyn weyn ku reebay dalalka dunida. haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha isbeddelka cimiladu uu saameynta ku yeeshay. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye. inta badan deegaanada Soomaalidu degto ayay isbeddelka cimiladu u saameysay siyaabo kala duwan, kuwaasoo deegaanada meelaha qaarkood ay webiyadu maraan ay ku keentay fatahaado sababay barakac iyo burbur beero ku teedsan dacallada webiyada ku yimi, halka deegaano badan oo kale oo Somaliland ka mid tahayna ay ku keentay inay ku habsadaan abaaro baahay oo saameeyay dad iyo duunyaba. abaartan oo deegaanada qaarkood sida kuwa xeebaha waqooyi ee Somaliland saameyn ba'an ku yeelatay ayaanay 2 sano ee la soo dhaafay wax roob ahi ka diin, beddelkeedana omas iyo abaaro baahi ay ku habsadeen. maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada abaaruhu saameeyeen ee Somaliland. xoolihii gebi awtaarigii badankiisu wuu socdayba ma soo maqlaysid, geeliina waa ka u yacay Itoobiya iyo meel fog. dadkaas ka tagaya awoodu mahayeen dawladdiisa iyo haddii midinkada hay'adaha dawliga iyo hay'adaha kale daacawiya ma leh anigu waxay ma leh wax soo ilaahay wax bixiyo keena. sida la rumaysan yahay walow dalalka horumaray ee warshadaha li ay qayb laxaad ku leeyihiin isbeddelka cimilada, haddana waxa badan tallaabooyinka iyo ficilada dadka Soomaalida ah ee mandaqada Geeska Afrika ku nool ay kaga qayb qaataan isbeddelka cimilada sababa dhibaatooyinka taagan. dhirta oo la jaro iyadoo loo adeegsanayo ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dhuxulaysigu waxay ugu horeysaa waxyaabaha aqoon-yahanka deegaanku aaminsan yihiin inay qayb weyn ka qaadato isbeddelka cimilada, abaaraha iyo kuleylka deegaanka. saameynta ugu badan ee cimilada isbeddelaysa iyo abaaruhu waxay taabatay xoolaha nool oo ah lafdhabarta nolosha Soomaalida, gaar ahaan kuwooda miyiga ku nool, sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah gudoomiyaha hay'adda badbaadinta deegaanka ee Candlelight ahna qoraaga buugga qaylo dhaan deegaan. dhaanka iyo biyaha marka ay cimiladu kululaato waxa weeye baahida ay duunyada iyo dadkuba u qabaan biyuhu way sii kordhaysaa, waayo xilliga qaboobaha biyaha cabto iyo xilliga kulaylaha waa kala duwan yihiin. marka biyaha baahida loo qabaa isticmaalkoodu badanayaa. waxa kaloo badanaya waxa la yiraahdo uumibaxa, oo maalan haddii barkada ku jiraan, haddii ay baliye ku jiraan, isbeddelka cimilada iyo hawada kululaanaysa waxay sababayaan inuu uumibaxu kordho, dabeedna biyihii sida ay ku yaraadaan. waxa kaloo iyadana xaggii xitaa daaqii ayay raad ku yeelanaysaa. la xisaabtanka iyo abuurista xeerar ka hortegaya waxyeelada deegaanka ayay khabiirada aqoonta deegaanka u arkaan inay tahay mid ka mid ah jidadka xalka u noqon kara si qof kasta oo waxyeelaya deegaanka loogu helo wax lagula xisaabtamo. Barkhad Maxamuud Kaariye, qubanaha VOA, Hargeysa.